السلام عليكم كسو دوادا تك سومالي maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkan lagu magacaabo VST muxuu yahay maxaa loo isticmaalaa iyo sida loo soo degabo intaba waan ka wada hadlaynaa marka ugu horeeyo VST hadii ay idin sharxo waxa laga soo gaabiyay Virtual Studio Technology waxa kale loo isticmaalaa habab badan in codkaaga quality-giisa lagu qurxiyo in sound effect lagu sameeyo iyo habab kale badan hadii aad dadka qaar music u isticmaalaan podcast-gan waa loo isticmaalaa iyo waxyaabo kale aad u badan dhanka kalena VST-gan wuxuu la shaqeeyaa dhammaan software-rada caanka ah sida Adobe Premiere, Adobe Audacity, Reaper waxyaabo kasta oo music oo lagu sameeyo VST way la shaqeeyaan xataa barnaamijkan hadda videogan hore ugu soo sharaxnay haddana isticmaali doona ee ah Audacity boqolkiiba waa free Audacity-ga marka sidaas darteed ayaa u doortay computer awood xooggan uma baahna hadda aan wada socono marka ugu horeeyo waa intaas sidee loola soo degaa tusaale ahaan VST-ga ma aha hal software waa software badan howlal badan kala qabtaan hadba midka u baahan tahay ayaa la soo degaysaa tusaale kale videogan haddii aad fiirsateen gabagabadiisii barnaamijkan ayaan isticmaalay laakiin sharaxaadiisa hadda ayaan idin tusayaa tusaale ahaan oo kale VST u baahan tahay heshay meeshan ayaa download leedahay computerkaaga dooranay Windows hadii yahay ama Mac ama inta wuxuu yahay markaas aad dooranaysaa wuu soo degayaa ka bacdina waxa leedahay waa kana maadaama aniga oo kan hadda iigu jiro next waa ilaa oo finish ka gaaro ayaa leedahay balse muhiimadda waxay tahay marka wax ku shubaysid waxa loo baahan yahay inaad doorato systemkaaga 32 ama 64 bit midku yahay next ayaa leedahay mar walba waxa muhiim ah meeshan inaad load gareysatid meeshan folderkan ayuu tagayaa mar walba VST-ga aad isticmaalayso computerkaaga ku xirantahay maadaama aan 64 ahay C program oo soo qabtay laakiin adiga hadii aad 32 computer isticmaalayso meeshan C program 86 oo soo qabanaa marka intaas inaad isla fahanno waaye habkaas ayuu computerkaaga loogu shubaa taasi qof walba ayaa wax ku shubi karo taasi waa meel hal ku tagayaa waa marka xiga hadii aan soo download gareyno computerka hadda tusaale ahaan oo kale C maadaama aniga program aan isticmaalayo 64 bit hadii aad taabto via keyboardkaaga kii haday aan ku soo shubeyno inta ayuu imaaday balse systemka automatic hab kale uu akhriyo ayaa idin tusaya marka waxa kala duwan marka isticmaalaysa 64 bit iyo 32 bit way kala duwan yihiin hadda aniga VST plugins intay soo wada galeen dhammaan waa ujeedaan ko meeshaan ay soo galaan midda labaadna ee ku xigta waxa waaye hadii aan imaano programku waa joognaa C hadda taabanayna common fileska taabanaysa ka bacdi VS3 iyo VS2 meelahan ay soo kala galaan waa qaybta 64 bitka balse way ka duwan tahay dhanka kale ee ah dadka isticmaala 32 bitka meeshan ayuu imaanaa meeshan markuu imaado meesha day VST anaga aan taabanayni folder gooni ayuu samaystay kan ayuu soo galaa sida aga jeedaan waa qaybtaas qaybta xigtana hadii aan asal sidoo kale C aan taabano common fileskan ah isla meesha VS3 inta soo gala balse dhankan oo hadii aad aragtid program files 86 waa qaybta 32 bit computerka ah meeshaas waa intaas waa isla fahanno okay haddana waxaan tegaynaa qaybteena Audacity-ga si aan ayadana sharaxaad yar aga bixino ugu horeeya adiga hadii aad programku dansan aad waxaas ku soo shubto sida saan oo kale kugu imaanayo shaashadaada waxay sameynaysaa kamal loading ayay sameynaysaa maadaama VST cusub computerkaaga aad ku soo shubtay marka xogaa yara sugay waa intaas midda xigtana waxay tahay sideen ku heli karaa hadda anigoo kale effect-ga dhammaan intay ii wada saaran yihiin waxaan waa ujeedaan VST waa dhammaantooda marka adiga maadaama aadan haysanin waxa imaanaya meeshan ay ku qoran tahay plugin manager ayaa imaanaysa aad sidan ayaa u weynaysanaysaa oo ujeedaa dhammaan aniga hadda leenkan fiirisa enable ay yihiin si aad ay kugu noqdaan waxa taabanaysaa select all ayaa leedahay calaamadan enable ka taabanaya ka bacdi okay ayaa leedahay reload oo sameeyna sababtoo aan inuu reload sameeyo marabo filterska aan diyaarsaday aan baxayaan inkastoo aan haysto marka aad hadii inta sameysid intan ayuu ku soo wada galayaa dhammaantooda marka waxaan isla tijaabinaynaa VST-gan quality-giisa iyo marka waxa oo Audacity ku isticmaasho kale ee kala duwan yihiin tusaale aan cod yar ayaan duubayaa waa test dhanka codka ah soo dhawaada waxaan tijaabinayaa mic-an waa test dhanka codka ah soo dhawaada waxaan tijaabinayaa mic-an okay waa kaliya waxaan sameeyay wax ilaa hadda ma sameynin waa duubay sababkii hadda aan soo dejinay ayaan fiirinaynaa effect ayaa dooranaysaa effect-gan marka dooratid waxa imaanaysaa meeshan waa kana waxa ku qoran Marvel sidana dooranaysaa marka adiga sidan aad u jeedid oo kaleeto oo waxyaabahan sidan ay yihiin ma ku noqonay sababtoo aniga hadda reset ayaan ku sameynayaa si aan u wada faahno marka koow aad soo degsato
marka ugu horeeya aad soo degsata sidaan waay si oo base aa u samaysid codka laba ayuu u kala qaybsamaa dhaxdan matalan oo kale intoo kale barkan wixii inta ka haddii aad dhinacan kor u qaato base ayay samaynayaan dhinacan kalene halfkan kalena haddii aad qaybihiis kor u qaado codka triple la dhahay ayay samaynayaan anaga waxaan u baahannahay inaan base iyo triple labadaba u samaysano meeshaan filterka inta imaanaynaa bright and base sidaan ayaa usoo dooranaysaa dhammaan kor u kaca markuu intan sidaan yahay bilcagsi ayaa ka dhigaynaa kuwaan xoogaa yara gaabinayna maadaama anaga codkeena inaan xoogaa qualityga basekiisa kor u qaadna aan rabno marka intaan ka bilaabaynaa meeshan ay ku qoran tahay 7 kaasaa xoogaa korgeynayay waxaa la rabaa sidii jaranjaro oo kaleeto inaad ka dhigtid oo ay noqdaan sidaan oo kaleeto preview aan leeyahay fiirsada waa testi dhanka codka ah soo dhawaada waxaan tijaabinayaa mic-an haddaa maqlaysaan xoogaa yaroo noise ayaa la socdo haddii aad kan kansala marka ugu horeeyana videoga hore waxaa xasuusataa noiseka sida loo baxsho sidaan ayaa leedahay waxaa imaanaysaa qaybtan ay noise ku qoran tahay reduction ayaa leedahay get noise profile ayaa leedahay kabacdina haddana dhammaan highlighta saaree effectiga kusoo noqonay noisekan noise reductionka imaanay marka haddaayay profile ayaa dhahday markaan okay ayaa leedahay haddii aan kuu sharaxa qaybtan noise reductionkan 12kan waxay ku base garaysan tahay meesha ani aa fadhiyo iyo shucaacaas ayaan ku base garayay marka adigana haddii meel buuq badan aad joogto kan ayaa xoogaa durji kartaa sensitivity-gana 7 ilaa 8 ka dhigan kartaa meeshaana 4 waa okay haddii aad ka dhigatid laakiin ha ka badinayn okay ayaa leeyahay codka fiira shucaaca uu ka baxada dhegeysa intaan qaybtan waad ujeedaan shanqartu way ka baxday marka effectigan haddii aan u noqono marka qaybtan oo aan imaano kii hadday aan soo degsanay sidan ayaa leeyahay apply ayaa leeyahay hadda fiira waa testi dhanka codka ah soo dhawaada waxaan tijaabinayaa mic-an sidaa ujeedaan habka loo isticmaalana waa intaas ayaan ku sharxay iyo meelaha uu galo marka insha allahu tacaala videogan inuu sii dheeraada ma rabo waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysataan aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan haddii aa halkan soo gaarteen waa idinkaga mahad celinaa mar walbana waxaan idiin sheegayaa videodan codsi ka yimaado dhanka tiktokgayga waaya haddii aad jeceshahay mawduucyada qaar inaan wax kusoo daro mar walba dhankaas tiktokgaygala soco @tech somali marka aad ayaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum